waxbarashada waxa loogu talagalay inay bedesho habdhaqanka bani aadamka afka qalaad waxay yiraahdaan education is for behavioral change hadaba bal hadii ay habdhaqankii bedeli weydo ama ay habdhaqan kala abuurto ka warramo waa nasiib darro taa waxbarashada ku sii fogaan maayo waqtigana la siiyay maadaama uu kooban yahay qishka oo ah mowduuca maanta aan isugu nimid oo maadsan yahay walaalkay baashana sababihiisii uu ka hadlay ayaan bal qishkii ka shanqarinaya horta qishku waa maxay qishku waa erey asal ahaan ka soo jeeda afka carabiga af Soomaalina ku noqonaya xatooyo farsamaysan ama qorshaysan waa xatooyo farsamaysan ama qorshaysan weeyaan xatooyo markaan leeyahay maxaan dareemaynaa qof waliba inuu maskax ahaan ama dareen ahaan u naxay baa suurtagal ah saamaynta koowaad waxa weeyaan arrad baa ku dhacaya qofka arrad ayaa ku dhacaya arrad markaan idhaahno maskaxdiina waxa ku soo dhacaya dee qof dharku ka dhamaadeen ma taasoo keliya af Soomaali uu mug weyn yahay qofku maskaxdu ka arradi karaa diintu ka arradi karaa dadnimadu ka arradi karaa dulqaadku ka arradi karaa taanku ilaahay bal dulqaadku ka arradan yahay naga ilaali maxaa dareemaysaa waxyaabo badan oo laga arradaa jira caloosha laga arradi karaa cuudka laga arradi karaa caafimaadka laga arradi karaa arradku noocyo badan yahay xiisad Soomaaliya ma bixinayna yaana arrad baa ugu horeeya marka ugu horeysa saamaynta ugu horeysa waxa weeyaan uu arradaya qofku waa ardaygiiba yaa arradaya oo muxuu ka arradaya arrad aqooneed baa ku dhacaya arrad aragtiyeed baa ku dhacaya arrad xirfadeed baa ku dhacaya saddexdaasina maxay ahaayeen aqoonyahankii Abraham Maslow markaan dib ugu noqono saynsigiisii waa saddexda tiir ee waxbarashadu ku taagan yahay la rabo inuu ardaygu kasbado waa aqoontii aragtidii iyo xirfadii saddexdaba uu ka arradaya walaha dadku af Ingiriis bay wax ku fahmaan af Ingiriiska waxay ku oran jireen knowledge skill iyo attitude wali waxa aad loo doorbidaa aragtida oo attitude-ka taa hadduu qofku ka arrado qof jira maaha qodobka halkaas kaga baxaya qodobka labaad waa guuldarro saamaynta labaad ee qishku yeelanaya waa guuldarraduna noocyada u kala baxaysa mid waxbarasheed guuldarro waxbarasheed baa ku dhacaysa qofkaas sida dhicitaan imtixaankii uu dhaco sababta waa ku tiirsan qofkaasi waa ku tiirsan qofka ku tiirsan ahna dee ma taagnaan karayo keligii mar unbu keli noqon oo dhacaya marka dhicitaankii baa imanaya wala fahmaya markan ku tiirsan leeyahay loo xijidnimo waxaan afka qalaad repetition ka yiraahdaan kan ka hadlayno geed socodka waxbarashada loo xijid buu noqonayaa f baan ka saaraya ng baa iga gashay waxa sumad maqlaysa kiyo ardayda intu ka dambeeyo ku soo noqnoqdo waxyaabahaas waa loo xijidkaas loo xijidnimo waa saamaynta ku imanaysa loo tuurni baa jirta iyaduna afka qalaad drop out bay yiraahdaan loo tuurnimadiina waxa weeyaan qofkanoo intuu quwad jabo niyad jabo cilmi nafsi ahaan dadnimo ahaan waxbarashadiiba ka baadiyooba taasaa ku imanaysa iyo aqoon kororsi la'aan waxba ma sii wadan karayo qofkan haddii uu markii hore ku soo diyaariyay qish wax ku soo diyaariyay aqoon kororsi ma samayn karayo oo darajooyinkii ku xigay uu ka gaabinaya waayahay mid shaqo taastii waxbarasho yahay oo qodobkii labaad fashil dhinaca shaqada ku dhacaya qofkan qishka ku soo baas oo in wada garanayna fashilkaas muxuu noqonayaa
imisaan la kulanay ama aynu aragnay idinku wad ka marxaati kici kartiini dad intay qaabka ku soo dhaafeen markii la shaqaaleeyay ee la yiri shaqadaadii wataas qabso dhinac ay kaga tagaan garan waayay dhinac alla iyo dhinac ay kaga tagaan ay kara waayay hadduu xirfad la caafimaad ahaa hadduu bara ahaa haddii tusaalayaal baan haynaa waliba rag la soo eriyay oo shahaadadiina laga reebay waa fashil dhinaca shaqada ah saameyn ka xun miyay jirtaa fashilka dhinaca shaqada ee kale waxa weeyaan qofkii aan waxba garanayn inuu wax uun yiraahdo bal ma shaqeynayaan lagu oranay meeshan wuxuu ku buuxo intuu yiraahdo oo bulshada dhaawaco bulshada dhaawaco wax iska yidhaa meel aan laga turqi jirin dadka ka turqaato xirfad la caafimaad ahaa kiniin aan la siin jirin uu siiyo ardayga wax kale uu sheego hadduu bara ahaa inuu markaa shaqadii marin habaabiyo si uu fashilkiisa u daboolo way dhacdaa taasina waa saameynta ka timaada fashilka waxa kale oo kamid ah hadimo bulsheed waa bulshadan u dhaawacayaan ka soo hadalay oo hadimeynaya hadimadu waa dhibaato xun oo qoto dheer hadimada bulshada waxa kamid ah qoyskiibu hadimeynaya oo ka soo jeeday isagu oo maadaama oo isagu sifa sharci darro uu ku soo caanamaalay ma soo saaraya ama ma tarbiyeynayo qoys caafimaad qaba ninkaas qodobka u dambeeya taab qasaar wax badan dadkeena hore waliba dadka nabi afka way ka tageen oo ka salbuureen taab qasaar wax la yiraahdo iyo saameyn abu ku yeelanaya qashku oo sidee taab qasaar mid nooceeya mid qofeed qof ahaantiisa uu taab qasaaraya qofkaas oo wadadu doono qashku doono ha ku soo dhameystirto wax aakhirtaanka ki taab qasaare weeyaan waa mid qofeed qof ahaantiisa u burburi doona saan kor ku soo sheegay taab qasaar waalidkii ku soo daalayayna isna uu taab qasaarna maalin u baa la qabani si ilmihii yaraaye laga sheekeyn jiray berigii aan yarayn jigjiga la oran jiray ukumbu soo xadu hooyadii u keenay hooyo bagaad inoo keentay ay tiri uu maalin kale soo xaday uu maalin kale soo xaday maalintii digaagadii iyo digaagiiba keenay markii dambe Sacuudiga tagay uu bilaabay hawshii gacanta laga gooyay uu dayn waayay gacanta kale laga gooyay la soo tarxiilay ay tiri hooyo maxaa ku yeelay adiga ay helay buu yiri adiga sidan ay galay hooyo macna maalintii bilowgii hadda iga qaban lahayd oo lahayd waxani diin ahaan waa xaraan maanta sidan kuma dambeeyeen marka waa mid qofeed mid waalidna waa taas mid dawladeed ama dawladda iyo dalka iyo deegaankana qofkaas waxba uma ha u khasaarinaya taab qasaar buu ku ridaya nabiga